Waxaan ku faraxsanahay 40 maalmood oo howlgalladaas ay si xawli ah u socdeen inaan maanta ku farxi karno in hay'adaha amniga iyo shacabka oo iskaashanaya runtii si aad looga shaqeeyay caasimadda Muqdisho amnigeeda iyo nabadeynteeda. Waxaan rabnaa in la sii dhoojiyo bisha barakeysan Ramadaan, shacabkana kaalintooda ka qaataan, halkan aan si gaar ah ugu ammaano ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo ah ciidamo geesiyaal ah u istaagay sharafka iyo karaamada shacabka, u istaagay badbaadada. Waa la socotaan muddadaas 40 casho ah waxaa la badbaadiyay khasaare fara badan oo ay argagixisadu u geysan lahaayeen shacabka. Badbaadadaasna waxay ku timid waxay tahay runtii wada shaqeyn hay'adaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan barnaamijka dirisaynta oo si heer sare ah noogu socdo. Qof walba waxaan ka rabnaa kaalintaada inaad ka qaadato si bishan barakeysan ee Ramadaan ugu noqoto bil ummaddu ay si cabsi la'aan ah u cibaadaystaan. Intaas ka sokow waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo horumarka dalka, loo istaago qof walba Soomaaliyeedna uu kaalintiisa ka qaato. Waxaan hubaa in ummadda Soomaaliyeed ay naga wada sugayaan inaan u adeegno, ummadda Soomaaliyeed naga wada sugayaan in marxaladda ka wanaagsan la gaarsiiyo, in la gaarsiiyo qof walbaba doorashooyin hal cod iyo hal qof ah. Waa gaari karnaa, kalsoonida dhexdeena loo baahan yahay, wada shaqeyn iyo horumarka inaan qof walba Soomaaliyeed kaalintiisa ka qaato.